lagu qoonsaday anigu maskaxda xor baan ka ahay dawladda khalad kuma raaco waa qodobka labaad isharraxaadda aan isharraxay baa aniga layga soo galay oo muxuu ah la leeyahay ninkan wax ceebaa ma lehe 30 sano uu shaqeynayay siyaasadana waa nooga horeeyay aynu ceebayno si uu uga haro ama aan loo dooran oo san tartanka noogu ciriirin sida kuwa kale oo sharaxan loo ciriiriyo aniga marka saasa focuska la saaray shacbiga Soomaaliyeed waa yaqaanin ayaga inaan u hiliyay waa yaqaanin xabashadu markay dalka qabsatay inaan shaqadayda uga tagay oo asmara ka abaabulay jabhad la dagaalanta waa yaqaanin Malazanawi markuu yiri 1990kii dadka la soo ceyriyay waa qabiilkii hubka isiin jiray waa qabiilkii ahay qabiilka kale oo ka soo horjeeda waa leenaya waxaan ku yiri marxaatigeedii waa noolya dadka Soomaaliyeed ma leen kartid noomana iman kartid annagu waligeena waa la isleynaa deyrtana waa la isleynaa waa isleynaa gugana waa heshiina hanoo iman soo qabiil u ka hadlayo qabiil noo kala saaray mowqifkayga waa la yaqaanaa 30 sano wax ceeba 30 sano waxaan wanaag ahayn oo dalka aan ka galay ma jirto soo baara meel la igu eedeeyay ma jirto hadda ay igu horeysa ninkii ku soo baxay hadalkii aan kula dagaalamay Ethiopia baan arintaas sameeyay oo abaalkayga saa iga dhigay marka ummadda Soomaaliyeed ha ogaato aniga ninka hanna la kala ogaado waa sharaxnahay hadday ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada ay doortaan waxaan u ballan qaadayaa dib dambe inaysan arag qaabka ay loola dhaqmayo dadkana aan loola dhaqmine nabadgelyada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ee madax bannaanida aan keenayo waxaas ka badan ma saasan rajaynayaa waxa la yiraahdaa ma ogtahay xaq feeruhu ka dilaaca Soomaha anu lacag aan ku tartamo ama aan laaluus ku bixiyana ma ogoli mana haysto laakiin muxuu ahaa sumcadaydaas iyo wadaniyadaydaas aan xaq u leeyahay oo muxuu ahaa rikoorka ah la yaqaano weeye waxaan ku socdaa taas baan ka rajaynayaa in la igu doorto daalayno waxa laaliyo wixii qarabnaayo dhan baan bedelayaa warkayga iyo muxuu ahaa hadalkayguna waa cad yahay ismana bedel anigu sidaan ahay baan ahaanaya dadka adeega dadka Soomaaliyeed baan noqonaya bulshada iyaga ku faafiyay ma ay oga xataa arintaasi consequenceska ama yaani waxa ay ku keeni karto dawladnimada Soomaaliyeed dawladda Turkiga oo dawladda Soomaaliya jaalla oo aad ogtiin sida ay u caawiso oo xataa lacag kaash siiso oo ciidamada u tababarta bay waxay leeyihiin hubkay tahriibisaa diyaaradeeda soo qaata airportkeeda sharciga bay ka soo baxdaa ma garanayaan waxaan qabaa qoladii aan ka gatay baan la hadlay waxaan ku yiri dawladdeena la hadlay safiirku waa ka warqabayo dawladdu nimanka ay sii daayay dambe hadaan lagu hayn dawladda Turkigu talaabay qaadi doontaa waan ogaan doontaa waxaan ka rajaynayaa in ay qoladii aan alaabta ka gatay oo shirkad weyn oo alaabtan gadaweeye inay dawladdeeda u sheegto oo meediyaha Turkiga already waa galay baa lagu yiri hadda meeshay ka bixi lahaayeen baa la rabaa iyo waxay Turkiga ku dheelaayeen dawladda Soomaaliya